iyadoo guud ahaan caalamka laga xusayo maalinta xuska dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayaa waxaa ciyaaro lagu maamuusay maalintaasi qabtay ururka dhaqanka iyo sportiska ee wadanka Finland marka la soo gaabiyo loo yaqaano SOCOS 16 kooxood oo Soomaalida Finland isla markaana ka kala yimid gobolada iyo waliba caasimadda wadanka Finland ayaa loo qabtay ciyaaraha isdhexgalka oo loogu talagalay 13 dhalinyaro ee SYL ee ka dambeysay in Soomaaliya ay noqoto wadan xor ah haddaba madaxda ururkaasi dhaqanka sportiska ee wadanka Finland marka la soo gaabiyana loo yaqaano SOCOS ayaa iyagu ka warbixinaya iyadoo ay kala qayb qaateen booliska wadanka Finland madax xildhibaano iyo waliba bulshada qiimaheeda kala duwan dhammaan dhalinyarada iyo dadka sharafta leh ka soo qayb gala ciyaaraha 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantiin waqtigiina qaaliga ah noo horteen ujeedada ka dambeysana ciyaaraha ay ka qaadana waxa weeye inaan isbarno dhalinyarada inay isbartaan waxaan la joognaa bulsho naga dhaqan duwan naga diin duwan sida maaligeed macnaheedu dadka iska xiriirina istusno waxaa maanta sharaf weyn ah inaan maanta idin kala qayb galo ciyaaraha gabagabadii ciyaarahan sanadlaha ee lagu qabtay Helsinki waxaa run ahaantii isboortiga shay ahmiyad weyn u leh xagga isdhexgalka bulshada waxaan hambalyo iyo bogaadin ku saabsan sanad guurida 22aad ee ka soo wareegtay SYL inaan u diro dhammaan dhalinyarada adduunka meel allaala meesha ay joogaan Soomaaliyeed runtii maanta waa maalin weyn 72 sano dhalinyartii idinkan leekeed ayaa waxay garteen in ay mataqaanaa wax wanaaga oo lagu xasuusto ay sameeyaan maanta idinkana waxaan idinka rabaa 72 sano ka hor in dhalinyaro hadduu gartay inuu wax qabto idinka inaad fikirtaan maxaa adduunka soo kordhin kartaan waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo ururka soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan oo ku aadan maanta oo maalin ku astaysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ama 15 May oo aad taqaanaan qiimaha ay noo leedahay loona baahan yahay dhalinyarada soo koraysa ee ku barbaartay dhulkan ama halkan ku dhalatay in la baro maalintaas qiimaheeda waxa kale oo ugu dambeyn rabaa inaan hambali yiraahdo kooxdii ku adkaatay tartanka iyo kooxihii kale iyagana ciyaar wanaaga meesha ka muujiyay waxaan leeyahay hambaliyo gudoomiyaha ururka dhaqanka iyo sportiska ee wadanka Finland Axmed Cabdullaahi Imada ayaa ka mahad celinaya sida wanaagsan oo ay uga soo qayb galeen dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waliba madaxda kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladaasi lagu weyneynayo maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL barnaamijkan maanta ay nooga soo qayb galeen maadaama qodob aad uga hadlay 16 kooxood oo Soomaaliya oo ka kala yimid gobolada dalka isku yimaadaan halkan ayadoo ay tahay maalin taariikhi ah ay tahay 15 May iyadoo aan rajeynayno inaan aad halkan ka sii wadi doono barnaamijkan waxaan aad idinkaga hambaleynayaa sidii wanaagsaneed aan wax ciyaarteen xushmada lahayd iyo kalsoonida waxaan kaloo mahad celinayaa TV-da nagala soo qayb galay barnaamijkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waqtiga soo hore si kastaba ha ahaatee munaasabadan loogu talagalay maalinta xuska dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada qiimaheeda kala duwan ee Soomaalida Finland iyadoo sidoo kale ay ka soo qayb galeen madax ka socota booliska iyo waliba golaha deegaanka Finland Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Kalson TV Helsinki Finland